kulanti wanaagsan saaxiibayaal soo dhawaada waxaan rabaa in idin la wadaago xogta iyo wararkii ugu dambeeyay deegaanada Jubbaland iyo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya oo qaaday tallaabo culus oo ku aadan sidii lagu soo afjari lahaa qorshaha Axmed Madoobe iyo rabitaankiisa haddaba maxay tahay qorshaha culus ee uu madaxweynaha uu qaaday halkan ku wada wadaagi doonaa si shirkada muuqaalka meel dheer la gaarsiinayna qaybta hoose faalada commentiga ayaad inuu wadaagi kartaan waa soo dhawaada saaxiibayaal madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaana si adag ugu hadlay mowqifka Axmed Madoobe uu ku taagan yahay isagoo oo cadeeyay wax kasta Axmed Madoobe uu raali u ka naqan karo inay markaas diyaar u lahaayeen rabeenna inay markaas xaliyaan tabasho kasta ama hadaf kasta uu leeyahay qayb weyn ay ka qaataan laakiin Axmed Madoobe ayaa si adag u sheegay in aana mowqifkiisa marna uusan ka leexanaynin ama siyaasiga ah aanan sin uga baaqsan kareynin dawladda Soomaaliya waxa ay qaaday ama baaq ay u dirtay beesha caalamka ama wakiilada ergeyga ee Soomaaliya jooga iyada oo markaas lagu amray in ay markaas wixii mas'uuliyad darrad ah halkaas ka imaado Axmed Madoobe inuu markaas ku lug yeelan doono dawladda Soomaaliyeed ay ka go'an tahay in hadafkeeda ama riyadeeda ku aadan ah inay markaas dalkan doorasho qof cod ah ay aadiso ay ka go'an tahay taasi oo waqtigan la joogayna ay saameyn weyn ku yeelan karto talaabada culus ee ay dawladda Soomaaliya hadda ay qaadayso waxaana u muuqata in mar kale uu markaas talaabada uu qaadi doono madaxweynaha ay noqon karto mid dagaaleed ama markaas Axmed Madoobe loo hortagi karo waxaana sidoo kale jira warar kale ee sheegaya in dhammaan wakiilada ergeyga gaarka ah ee halkan jooga ama dawladaha kale ee halkan ka jooga ay si habsami leh loo socodsiiyay wax kasta ay halkaas ka yimaada in mas'uuliyadeeda uu qaadi karo Axmed Madoobe waana sababta ugu weyn ee waqtigan la joogay dawladda federaalka Soomaaliya ugu aamusan tahay waliba oo ay xiriirinayso xaalka adag ee labada dhinac markaas kala dhaxeeya dawladda Soomaaliya mar hore ayay sheegtay iyadoona warqad ay soo saartay kuna tilmaantay in Axmed Madoobe rabitaankiisa aanan sinna ugu sii shaqeyn doonin gudaha Soomaaliya inkastoo muddo adag uu sii joogay Soomaaliya laakiin waqtigan ay tahay tii ugu dambeeyay ee uu isaga markaas dalku ku joogi karo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaana go'aankan adag wuxuuna kulamo xasaasi oo la qaatay oo cadeeyay ergeyga gaarka ah ee heedaha kala duwan ama dawladaha kala duwan ee Soomaaliya ka jooga isagoo oo u bidaamiyay qorshaha Axmed Madoobe hadduu ku taagan yahay hadii uu dib ugu laaban waayo inay markaas sinna oonan uga hareynin oo ay markaas fadhigiisa ugu tagi doonaan waxaana sidoo kale dawladda Soomaaliya ay ka go'an tahay sida uu sheegay inay marnaba aynan markaas dalkan qorshuhu ahaa doorashada qof codka aanan sinna looga laabanaynin oo walibana meeshii la rabay la gaarsin doono taasi oo hadalhayn weyn ka dhalatay iyadoona markaas madaxweynaha uu sheegay xilli shalay kulan markaas jimcaha ahayd uu joogay uu sheegay in Axmed Madoobe wax kasta oo uu rabay uu markaas maslaxada ay ku jirteen uu isaga diiday iyadoona waliba markuu baxayna si dhuumaaleyso ugu tagay magaalada Muqdisho caasimadda ee Soomaaliya talaabo kasta ee dawladdu ay qaadi doonto waxay u muuqan doontaa inay noqon karto mid dagaaleed oo Axmed Madoobe lagu soo qabanayo wixii warar kale ee ka soo kordha halkan ay ku wadaagi doonaa si shirkada muuqaalka oo meel dheer la gaarsiin qaybta hoose faalada commentiga nagu wadaag mahadsanidin